salaadiinta cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobollada saaxil togdheer iyo maroodi jeex u dhowaan shir ku qabsanaya magaalada Hargeysa ay kaga tashanayaan aayaha mustaqbal ee beeshooda waxa ay maanta munaasabad hadhimo sharafeed ugu sameeyeen magaalada Hargeysa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka qurba jooga ee Kulan Global munaasabadani hadhimo sharafeedka oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horeey munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii cuqaashii iyo odayaashii ka soo qayb galay munaasabadani lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka ururka qurba jooga ee Kulan Global ayuu Sultan Xasan Maxamed Axmed aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirka Ciise Muuse waa maqadis uu qabsoomaya qoladii qabanqaabaduna way ku mahadsan yihiin dadku cid uba xidhna danahooda ay ka tashanayaan danahooda maanta Ciise Muuse dantiisu ka tashanaya ururka beelweynta Ciise Muuse Kulan Global waxaanu leenahay ku soo dhawaada dalkiinii ku soo dhawaada beeshiinii shirka lu soo qabanqaabiseen waxaan ilaahay ka rajaynayaa shirka waxa weeyaan muddada dheer soo wadaniya qabanqaabada ilaahay subxaanahu wa ta'aala muwaafaqo iyo tawfiiq Allah ka dhaliyo doodaygan inoogu weynaana insha Allah bidmilaahi karim waxaan usanayaa aanu ducayno waana xusaynaa waana ninka qura biladgeesda ku leh shirka Ciise Muuse iyo daniya duco waa ninka kaliya qaar baa yiri Muuse laga horin oo Muuse dalbay mucaarad ku yiin adeer Muuse waa ninka qura daniya duco halka soo gaarsiiyay Ciise Muuse waxba kuma kala seegana xafladda waxay daaranay soo dhaweyn iyo martiqaad aan ku soo dhaweynayno qurba joogta shirka Ciise Muuse u socdaana hore ayaa loo ilaaliyay annaguna waa ugu baxnay deegaanadii oo ka shaacinay oo ka sheegnay maantana waa sheegaynaa mar labaad dibad iyo gudaba Ciise Muuse uu shiri karaa waanu isii ma karaa waxaan diyaar u nahay annagu haddii aanu nahay kuwii dalka joogay in si wanaagsan inuu shirkaasi noo qabsoomo oo uu noo dhaco oo aanaan cidna uga u tashanayne daraha Ciise Muuse iska weydiinayno maantana wuu qabsoomayaa shirku insha Allah saynu ilaahay ka rajaynayno Ciise Muuse mid buu waliga ahaa maantana mid uu ahaanaya marka waxa weeyaan aad waxaynu ugu dadaalaynaa magaca inaynu adkayno Ciise Muuse nimada sidoo ahaan jireen inuu qaado mas'uuliyiintii Kulan Global aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin welcome baan leenahay ku soo dhawaada wadankiinii hawsha wanaagsan ee ay noo keeneen ay wadaana waanu qaadanay sideeda ayaa lagu qaatay dalka iyo dadkuna wuu u baahan yahay in mar walba update lagu sameeyo oo la shiro oo la kulmo oo wixii dadka iyo dalkaba ka dhiman lagu soo kordhiyo horta magaca halkan lagu hayaa waa Ciise Muuse Ciise Muuse saddex gobol buu degaay uu ballaadhay magacan la fudaydinayo ma aha waa magac weyn oo aad iyo aad u ballaaran Ciise Muuse waxay ka shirayaan ilaa hawd guntii ilaa xeebta cid u adeegta oo u shaqaysa oo sidii loogu shaqayn jiray da ugu shaqaysa cid la durayaa ma jirto cid hore talada haysa way mahadsan yihiin waanu u mahadnaqaynaa marti sharafka timid odayaasha cuqaasha salaadiinta ee ka soo qayb gashay xafladaan u sameeynay lafdhabartii qurba jooga oo maanta inoo yimid shirkeennana ilaahay ha ka dhigo bashbash iyo barwaaqo iyo Ciise Muuse midana ilaahay baanu ka baryaynaa biidnillaah si gooniya ayaynu u mahadnaqaynaa una salaamaynaa ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa in dadaalkooda iyo tacabkoodaasi ilaahay ka abaal mariyo wax weeyaan hal wax un baa inoo yaala qoladiinii qabanqaabada shirkii waa inaad nidaam iyo barnaamij u samaysaan talaacad baa laydinka eegayaa oo dadka isugu keentaan wali ama dan iyo ducaa u taga ama qolo kale u taga waxa weeye shirkaasu inuu aanu baaqan ceebna yeelanin dadkuna isugu yimaado waxaan u maleynayaa ninna kaba qarsoona waxaan u soconnaa annagu uma soconno siyaasad uma soconno dhib kale waxba kuma duugno shirkan waa midnimada reerka waxaan u soconnaa nooliba taa ha ogaado
ninkii bukana halku u bukaa loo xoqay geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha Siciid Cumar Hurre iyo guddoomiye ku-xigeenka Axmed Maxamed Cali Beegsi geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta loo sameynayay munaasabadani hadhimo sharafeedka ah ee ka socday ururka qurbajooga ee Kulan Global Siciid Cumar Hurre iyo waliba Axmed Maxamed Cali Beegsi kuwaasi oo uga mahad celiyay salaadiinta munaasabadani hadhimo sharafeedka ah ee ay ku soo dhaweeyeen sidii uu halkan ka sheegay ugaaskii iga horreeyay hadlay nin kale cid baa loo jeedaa war xaaji muuse aniga ah idinka ah waxa weeyaan innaga ah waxa weeyaan dadka dacaayadda rakiiskaa fidinaya waxaan leenahay ciise muuse waan is wada taqaanaa meel baanu wada socdaa shirkaasina wuu inoo qarsoomayaa si sharaf inoogu qarsoomayaa waxay naga guddoontaan salaan aad iyo aad u qiimo badan oonu gorbajooggii rag iyo dumarba idinka sidno shirkii hore ee dan iyo duco raggii lahaa fikirkooda iyo howlgalkooda iyo baaqoodaan ahay maantana waa sidii oo kale cid gaara oo annagu aanu shir ugu baaqnay oo goonnihii ma jirto annagu waxaanu soo dhex dhignay reerka oo dhan oo salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo ogaasyadooda iyo dhammaan siday u dhan yihiin reerku inay tashadaan oo ka tashadaan aayahooda maaha arrin siyaasadeed maaha arrin cid gaara loogu adeegayo maxamed cumar daariq RTN Hargeysa abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $126 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus تعالسا واكو سلام ربي أول عقتي بيلكي مانت لعقتها قيمة بنات أنا أنت أصلا كنت براي ما أنت داد العقهين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله لا ما تسكله يسر الله إذا سوعس أنا وشيء هلا حاجي وحوي لبنا كنت توسي شافتان وكيربان marka xogo iyo dulqaad baar xalan ku hayaa ma kulli ma haajay akhbaar farxad laan ku hayaa tircana akhbaar farxad laan ku hayaa isheeg taas ida ma hor harto raan daaco akhbaarta farxadda la ku sheeg qoshuba oo ku guulayso waxaan ku guulaystay ina ooyaa iga soo dhumar dambe ima burinayso bajaajan ku guulaystay anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhagaan ku dhagaa bajaaj lacagtan kalisa adiga haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan